qisadan waxay ku socotaa qof walba oo ganacsata ah oo wax iibiyo ha yaraado ha weynaado hadda taqaanid u sheer garay fadlan ninkan ganacsade ayuu ahaan jiray habeenada kamid ah uu seexday wuxuu ku riyooday isagoo dhintay wuxuu ku leeyahay aniga waa dhintay laakiin wax walba waa arkaa waa maqlaa laakiin dadka iima jeedaan anigoo qaylinaayo ayaa maxay ahayd lay dhaqay meedkayga la meeray anigoo qaylinaayo lay karfimeeyay anigoo qaylinaayo ilaa qabrigayga laygu geeyay lay aasay caradii laygu rogay qofka ugu dambeeyay ee qabrigayga agtiisa dhawaaqiisa waan maqlaayay war hebelow war heblaayoy war familkayga si kasta ugu qayli wax imaqlaayo ma leh marka layga kala tagay madowgaas keligayga aan ku jiro ayaan waxaan arkay wado dheer oo madow ah markaas waxaa iraaday sida uga bixi lahayd meeshaan ku dadaal maxay ahayd wadadii aan qabsado ku leey wadadii sidaan u haayay cabaaraan u soconayay haddana laba ay isku kala bixisay wadada midig iyo bidix ay noqotay markaas waxaan leeyahay sunnada ayaan raacayaa dhanka midig ayaan u kacay sidaan u socday meel oo dheer ayaa iftiin iga soo baxay markaas aan alxamdulillah ugu dambeyntii meel ka bixi lahaa waan helay sidaan u ordaayay waxaan hortagu ku leeyahay meel qurux badan oo dhir ah oo leerteeda iyo carafteeda udgoonkeeda yani waxaan leeyahay idan waa dhimatay hebelow jannadiina waa tana macnaha ahlu janna tahay ma sha Allah tabaaraka waa farxo ku leeyahay anigoo isleh gal ayaa waxa iga daba imaaday laba nin waxay iga soo jiideen kuleetiga macnaha qoorta shaarka iga soo jiideen markaas waxay leeyihiin hadda xaqeena nasi adiga meeshaan laguma talagalin ee meeshaada waa taas naartii ay tuseen naartina waxaa lagu cadaabayaa dad hilibyadooda lagu shiilaayo dadka la cadaabayo oo cadaabta ku jiro wuxuu ku leeyahay waxaa ka naxdin badan ninka cadaabayo wuxuu ku leeyahay musmaar dheer intuu soo qaato ayuu madaxa intuu ka geliyo ilaa iyo xagga dambe uga soo saaraya oo qofkii kala dilaacmaya qaarkoodana dab ayuu saa u dul saaraya qaarna saliid karkarayso ayuu ku shubaya marka isku naxay ayaan waxaa iraadayaatihiin idinka maxaa iga rabtiin markaas waxay dhaheen hadda xaqeena nasi markaas waxaan ku iraada xaqa sheegaysiin maxaa waaye weligayba idin ma arkine markaas waxay yiraahdeen anaga waxaan nahay hebel iyo hebel oo maalintii ka iibsanayay badeecadaas adiga wax oo aan jirina nasiisi oo faalsi ah lacag zaa'idna waa naga qaaday ee hadda xaqeena nasi markaas wuxuu yiraahday dib ay soo xasuusiyeen markaan xasuustay ayaa waxaan dhahay wallahi qasdigayga ma ahayn gaaja ii geysay walaalayaal oo cafiya iga raali noqda waqtigeeda lama joogay dhaheen hadda xaqeena nasoosi anagoo sidii iskugu dhagan ayaa ninkii oo dadkii cadaabayay oo hilibyadooda shiilayay ayaa soo dul istaagay markaas wuxuu yiraahday khair maxaad isku haysatiin murankan muxuu yahay markaas waxay yiraahdeen ninkan xaqeena nooga qaad markaas wuxuu yiraahday xaq noocee aad ka qaadatay wuxuu yiraahday aniga qasdigayga ma ahayn maalintaas wallahi ugu talagalin daruufa ii geysay dana ii geysay qof xun ma ihi markaas wuxuu yiraahday kitaabkaaga keen markaas waxay yiraahdeen kitaab noocee dhinacan ka soo qabo idhaysa markaan u eegayba kitaab baba gadaashii yaal waa soo qabta u dhiibay wuu akhriyay markaas wuxuu yiraahday nimankii ii haystay mid kamid ah keen adiga kitaabkaaga kitaabkayga ayuu kala furay kitaabka ninka kale uu kala furay kitaabkayga wixii ku qornaayo ajar ah wuxuu ku riday kitaabka kale wuu isku laabay wuxuu yiri qaado adiga kitaabkaaga soco adigana keen kitaabkaaga haddana wixii kitaabkayga ku qornaay ayuu ugu riday wuu isku laabay qaado dhexe kitaabkayga wax kuma jiro wixii ku jiro ajar oo dhan nimankaas ayuu u qaybiyay anigina ayaga wuxuu yiraahday orda idinka jannada gala anigina intuu isoo qabtay kursi oo asaga dhan dabka kacayo oo kuleel ah ayuu ugu fariisiyay wax kale uma sameeynin mismaar dheer oo ballaaran oo aniga iga dheer ayuu maxay saliid karkarays intuu saa u soo geliyay hal dhibic oo saliid ah bis ayuu madaxayga ku tifijiyay markuu madaxayga saa ugu dhibciyay saliida madaxayga lafihiisa iyo hilibkiisa way kala baxeen halkaas dhibic oo saliid ah bis naxdinta aan naxay hal maran soo booday anigoo albaabka agtiis taagan ayaan arkay meesha oo tinku maxay ku furfurtay aan ogaaday inaan noolahay wali aan dhahay subhanallah aniga dhan murug habeenkii iyo maalintii cid lama hadlin habeenkii waan seexan waayo dhahay saxaas waxaan soo tukaday wiilashayda oo waaweyn ayaa joogaan markaas igu yiraahdeen markay iga dareemeen murugo aaba maxaa kugu dhacay markaas waxaan yiraahday waxba iguma dhicine cid ilama hadli karto habeenkii oo dhan saan u aamusnaa maalintii kale waan aamusnaa isbuucna markaan aamusnaa waxaan raadiyo yiraahday sheekh oo ii fasiro riyadan waxa la ii sheegay nin caalim ah oo sheekh ah oo qof weyn ah oo meel heblaaya degan luga ugu tago dhahay gurigiisa markaa u tagay sheekadii ayaan u sheegay markaan qisadii u sheegay hoosan aadiyay indhahayga xataa sheekhi waan fiirin waayo dhahay markaan sheekadii aan dhameeyay markaa indhahayga kor u soo qaaday waxaan arkay odaygii aan uga sheekaynayay garkiisa oo wada biyo buuxo sida u ooynayay bis markaas wuxuu igu yiraahday wallahi
والله قصة هذا وقصة أذك حلنا لو مهلي كرو لكن واسكن نصيب سننا هل حلن كسينا ويرادي نمان كاس ما تقانا مركز ويراد والله نمان كاس ما أقانو حتى ما حسوست وجيدو حتى محي هذه لمبركودي مقعودي مال أنكرادي iyo حتى 10 sano hadii kadib hadaa raadiyana ma heli dooni ilaa waxba kama haysto markaas wuxuu yiraahday mid samee dadkaas u sadaqay marka u sadaqaysid adigana mar walba tasbiixda iyo sadaqada badi ilaahay bari ayagana u duceey adigana duceyso markaas wuxuu ku leeyahay wallahi yani ilaahay ayaa horta ii qadaray inaan anigoo nool arko waxaan dad baa ayagoon war weynin sidaa ku dhinto laakiin wuxuu ku leeyahay wallahi wax yar ee adduunyada anaga aan sahalsanayno wax yar aan moodno wallahi aakhira lama qaadi karo 500 ugu yar hal sentiya ugu yar maanta anaga waxbana lama aha laakiin aakhiro والله عذابتي حسابتي leedahay فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى qof walba wax yar oo khayr haduu arko oo sameeyo wuu arkaya wax yar oo shar hadaa sameeysidna wada arkaysa xisaabtu way dambaysaa laakiin aan ku dadaalno anagoo dadna aanan dulminin oo nabad qabno adduunyada inaan uga tagno u shargaray qof walba walaal ay taqaanid oo wax iibiyo ama qof walba wax iibinin oo iibin doono u shargaray amaanay kugu taaqaas gaarsiina inta noolnahay